gabdhaha saaxiibada ahaa oo isoo qarxiyey gabdho waaweyn oo garoobo ah ubaxna waxa waaye saddex dhal waa saddex wiil oo waaweyn u joogo ugaasana hal wiil u joogo waxa waaye waxaan maxay ku keeneen aan rabaa inaan idin sheego daa gadaashiis waxa dhan iyo confirm boqolkiiba boqol xog fadhiso shariifa u maalaysiin taqaanaa in wax barfuun iyo wax la yiraahdo ma jiro ubax gurigeeda miiska dhan wada barfuun waaye sababta oo gabadha muuqaalka u duubtana waxa waaye 2025 bishii December ee muuqaalka duubtay oo rajabeetada iyo kastumada ay wadato ugaaso wax sababta u duubtay wax dhan sheego dagaalku xusal ku idin sheegi doona walaalayaal sida waqti hadda waxa la suuq la soo geliyo heshiis iyo habahab iyo kashka soo gali iyo waa sheekada daaroodka ay wadaan iyo beent iyo quraafaadka Soomaaliya dawladda leedahay gobolka banaadirna boolis uu leeyahay arrintan waa arrin boolis baaray oo la soo ogaado way saddex muuqaal ma ka soo sameeyay CCTV camera in la hayo shan ugu dambaysan waa sheegay inuu ziin wax dambe ay yeelneen ay tahay arrin maseer boqolkii waa duuban yahay waxa waaye habi qacmaane habi kashka waxa waaye danta ku qasabtay inay canuf dib u laqaan maxaa yeelay CCTV camera la hayaa marka qac daarood laga ma yeersinine sharciga qac keersi habina sharciga qac ka yeersi taas ma fahanteen habi danta ku qasbayso inay ogolaato wax kastaba macnaa inay ogolaato danta ku qasbayso maxay CCTV camera meesha la hayaa meesha waxa la hayaa luusin gabdhaha intoo wada luusin kaligeed soo ordayso oo habi garaacis waa la hayaa macnaa taas naftakeeda haddii muuqaalka soo baxan ceeb iyo fadeex ku noqonaysa bal haduu fiirso anaga ma soo daynayno marka anaga ma soo daynayno maalinta maxkamad aado anaga muuqaalka soo daynayna haddii heshiis dhacana muuqaalka ma soo daynayno booliskana ma soo daynayaan taas ma fahanteen habina saasi habi ku tahay maxay ceebtada banaanka soo baxay sida loo garaacayo hal gabar kaligeeda garaacaysa habi oo kashka soo ordaya xabada gabay taas marka sheekadan oo kashka soo galay waa iska sheeka been waaye kashka waa nin dambiila maxkamadana sugayso xabado kor u gami asagii ninkaas luusin soo taas waa fahanteen xog fadhiso arinta saxda shariifa u maalaysiin muuqaaladan waa duubin waan arki doonaa hadii ilaahay ilaah waxaan galaynaa markiiska marka ugaasa gabar hawiya abgaal oo daawud oo isaaq daawud oo reer xilolo waaye taqaana waxa waaye abtaal waxa waa gobernador saciid waxa waa reer muqdisho mataqaana kay waxay joogtay nin ceero habar gidira guursaday oo wiil u dhashay wiilka u joogo ugaasa waa gorob u joogo gabar ganacsata oo isku qarsoon qurux ilaahay hebid ilaahay si aad u dabacad fiican ugaasa gabadha ayaa waay gabadha waxa la ubax ayadana waxa waay mataqaana holwuday ku magac tahay waxa waay reer Kanada ay jirtay kadibna Mareykanka u soo guurtay saddex wiil u joogo ayadana gorob saddex wiil u joogo way 20 sano inay gorob tahay oo ilmaha iska korsatay ubax waxa waay inoo dumarka waxa waay oo gacanta adag waay macnaa labadan gabdhood waxay isku qabteen ay sheegaa moogtahay wax barfuun yara ma jiro waxa waay ubax waxa waay gabdhaha gacanta adag waay macnaa waxba ka bixin laakiin raba dadka inay isticmaasho macnaa waxa waay misalka kale ku soo dhaweynay naaga kale u ciisa gabra ay iimaanaysa gabra saaxiibta iimaanaysa lacag kale meel kale ka soo qaaday dadka ay ku casuumaysa ay ku wareejinaysa macnaa lacag ay ayda leedahay marnaba wax dad ma geliso markay safar ayaysa dadka ka soo urursanaysa tidi markay jaraysa qof nina wacaysa ay tol ama saaxiibada waxay leedahay wareeblo maxaa dhacay maalmahan waa wallahi bilaa talay maxaa dhacay aan waxa rabaa tigid inay jirto macnaa tigidka markay diyaaradda kornaysa hataa soo tuqsanaysa horta ubax gabar noocaas waay ana hadda inta been ka shaqeeyaa Minnesota waa la siqana reer Minnesota dhan waa yaqaanaan ubax waxay tahay waxay gud waa la yaqaanaa gabar noocaas way macnaa dad inay wax ka qaadamaan macnaa waxa way means waa macnaa ma jirto waa plus waa wax plus wallah horta wax gabar noocaas way ubax waxay aaday waana kala weyn wax badan ay ka weynta ubax 5 sano ka weynta ugaasoo ku weynta ubax iyo ugaasoo waxay isku barteen magaalada Nairobi 2022 meesha saaxiib ku noqdeen ugaasa ganacsatay iska noqotay ingiriiska iska imaaday ubaxna ingiriiska mar ugu maado ku soo dhaweysay hadda sheekadan walaalayaal waxa waaye koox kale waxa jirto gabar kale waxa jirto ubax ugaaso ninay guursatay oo garre ah 100,000 oo haystay markuu imaanay macnaa ugaaso ka helay jirkeeda quruxdeeda way ka daastay macnaa ugaaso ninkaas wuxuu guursatay inay lacagta ka daadsato rabitaan uu guursan ninkaasna taqaana weyn iska furtay balaad u fiirso macnaa ninkaas naagtiisa hore oo mataqaana banaadiriga shaanshada oo Mareykanka joogto faisal ay maseertay Turkiga tagtay xitaa hadee jaqlayso waa soo dhigayna sawirad waa hayna Turkiga ayadoo aadiso taqaana waxaan ku dhahay si walba sameeyso waa soo qashay ayadana sida wax soo dhigtay taqaana ugaaso kale waxaas dhan sax way anaga soo barnay horta gabadhaas kooxeeda goori waa ayadana kooxay wadataa oo ugaaso ku kacsan ubaxdana koox waa ayagana shan qof waa ayagana ugaaso ku kacsan macnaa ugaaso waxa way dada u tashtino maxay gabadhan gabar qurux badan waay gabar isku kalsoon waay waa sida ayaan dhaldo kale ayaan dhaldo markino kartideeda iyo dadnimadeeda iyo quruxdeeda laga masarsan yahay taqana waa aragtay naag badan ka masarsan oo xitaa qaarkood ogaadeen ku jiro Nairobi ka masarsan ugaasana saasoo kale waay laakiin ugaasa gabadhan saaxiibay ka dhigatay 2022 bartan saaxiibay ka dhigatay sanadka hore Mareykanka u tagtay safiican wax safiican wax dadka la fahmaynin waay way soo dhaweysay safiican u soo dhaweysay lacag dadka soo aruurisay wax iska dhigtay inay lacagta leedahay
taqaana meela la geeyay waa lagu wareejiyay xeebtii aadeen muuqaalka shan soo qarxinay xeebtii markay aadeen labada bis way ubaxa duubtay intaas yartay ka duubtay hadday ubax waxay u malaysaa ubax bulus alla ubax bulus waxay u malaysaa bulus waxa waaye qof inuu wax soo galmaan inuu wax ka baxa ma raba aan ka wadaa ubax bulus waxay u malaysaa inay ceebaysa ima ceebeen gabar qurux badan oo xeeb dhex taagan oo kastoomira jabeeta wadata jirka ilaahay si ayaabays maasha allah oo rag badan ah hadda hami galay marka ubax waxay sharad u samaysay magaceeda iyo sharafteeda kor u sii qaaday ugaaso laakiin ubax bulus allah ilaa wax ma ka baxaane waxay u malaysaa marka inay ceebaysa u malaysaa ma ceebeenin aad iyo aad gabar qurux badan ummad tustay hadda rag badan rabo dhahay 100,000 miiska saarayna hadda nin hadda guursanayo oo 200,000 ka bixinayo oo miiska saaraya saas marka ayada lacag la sii helaysa ogaaso in ubax bulusay waa fashilantay waana ceebowday gabar saaxiibta oo ku aamintay meel isku raacay inaad duubto walaalayaal barfuunku waa iska sheeka waay ubax barfuun ma u baahna miiska gurigeeda ma arkano miiska gurigeeda dhan ubax wada barfuun waay wallahi bilaa bay sheegin barfuunkaas wax ugaasa gaday waxa u dhiibtay mataqaana wax waxay dhaaday ninaas ku imaanayo ha ku siiyo macnaa si ayaan dhalada loo dira maadaama ay og tahay aan dhalad iyo gabadha iyo ugaas inay saaxiibeen maadaama og tahay ugaasooda macnaa horumarkeeda iyo quruxdeeda iyo marka Minnesota dad badan wadwado meelahaas laga geenayay ka xumaatay oo dadka dhan wadwadaay ugaaso marka dadka waxay leeyihiin ugaaso naagtan oo waxaan ku dhahay dadka tuugsato oo xaafadaha guryaha dadka 300 ka tuugsato ma ku soo dhaweysay meesha wax ka dagaalamayso macnaha waxa way si aniga waxa way liixa ma karaa way macnaha waxa ugaasada macnaha meesha ugaasada ee kala dagaashay baad u fiirso wax kala dagaashay wax barfuulay ma jiro waa maseer leh way xaraba markuu horeyso ina idin sheego iyo dhamaan taageerayaasha Luzino banaanka ay joogto waxa way shalay maqribkii fiidkiina soo baxday haddana inay mataqaana banaanka joogto siday kuwan banaanka joogaan banaanka joogtaa kuwan media looma ogolo mana hadli karaan saasoo kale Luzinina media looma ogolo mana hadli karaan intii arrinta dhinac u dhaceyso inta maxkamadda laga gaarayo waxaan rabaa inaan idin sheego wax oo lacag oo habiya lacag la siiyo iyo waxaas waa sheeko suuqa waaye mataqaana waan idin sheego muuqaalka ka horeeya shalmay daraad waa idin sheegay Luzin inay soo baxayso preamble inay soo baxayso shalmay daraad idin sheegay xalay fiidkiina way soo baxday taas waxa waaye in shariifku xog fadhiso inuu soo gudbiyo taas ay cadeynayso had waxaan rabaa inaan idin sheego kiiska soo u yaalo miiska soo saaran yahay qaana waqtiga maxkamadda balanta waa la qabtay koor hadii habi ka noqotana waa arkaynaa oo heshiis ay ogolaato hadii diidana maxkamadda la waadi doona laakiin 100% waxa confirmani double confirm waxa Luzino wax xarig kuma dhacayo wax oo mataqaana oo magdhowne oo lacag badan iyo magdhow waxas ma jiraan waxa waaye arintan maseer waay horena idinku sheegay daraad hadana idinku cilinaa waxa waaye habi waxay qoratay dacwada ku soo oogtay Luzino in isku day dil ay ku samaysay mataqaana weerar lagu soo qaaday Luzino dad badan ay habi soo weerareen garaaceen waxa waaye nafteeda maxalis ay gashay saasay qoratay gurigeeda lagu soo weerar macna intaasay qoratay habi Luzino waxay qoratay in ninkan xiriir ay lahaayeen isjeclaayeen kadibna ay kala dhamaadeen si walaaltinimo si sharaf leh kadibna in oo waxyaalo badan oo ku saabsan Luzino arrimaheeda dhan macnaha inuu habi u gudbiyo habina mataqaana dagaal ku soo qaaday Luzino oo gabar ay haystaan oo huddo kale mataqaana ay u gudbiso wax kale u gudbisay qara Luzino intaasay qoratay in cindigeeda sharafteeda meel looga dhacay adduunyadana taa ku oolin mataqaana waxa waaye Soomaalida lagu ceebay waxay u qalmin ummadda lagu tusi soo muuqaal aysan lahayn waxa waaye la dhahaydo waaye waxaas dhan ay qoratay macnaha in adduunyada dhanba joogis ay rabin maadaama ay gabadhan sharafteeda cindigeeda meel uga dhacday Luzino intaas ay qoratay walaalayaal kiiska markii oo waxa waaye waxaan rabaa inaan idin sheego heshiisa dhacay iyo hebelo saan waaye iyo waxa waaye lacag iyo waxaas dhan walaalayaal dadkeena sharciga ma yaqaan waa idin sheegay marka kiiska markuu saas u dhacay boolis waa qabteen haddu fiirso habi maadaama cijiye ay ku yaalaan dhawac yar uu soo gaaray waxa la adiga waa fasaxan tahay kashkana waa la damiinta Luzino waxa waaye waa ta ay sheegay ayda diido ninka kula la damiinta sida kuwan kale rabtay in soo baxan in ayda ninka kale soo baxan Luzino waa tii laga diiday taas waxa waaye sir kale hadda qayb dama ku qatimaan Luzino xalitoole dadka mas'uulka ahaa markii beesha ashraaf oo tolkeen laga saaro waxa waaye majarteen waay taas waa idin sheegi doonaa arrintaana waxay mataqaana suuq soo gali doontaa dhul bahanta iyo daaladka kale iyo majarteenka waa isqabsan doonaan
maadaama waxa way xabadka u garaacdeen majarteenka oo waxa way sharaafta ila soo safteen taas waa idin sheegi doonaa walaalayaal waxa way kiiska markii saas loo qabtay waxa way sharci waxa way boolisku wuxuu leeyahay qaybta CID adduunyada kasta leedahay muqdisho CID da joogto qaybta xamarjab CID da loo gudbiyay waa la baaray waxaan waa la baaraa dada waxaan mushaar ku qaato ku takhasusi labada halkooda la dhigeysto waa la baaray CCTV kamerada la tagay ay tahay idin sheegay waa la soo baaray waa la arkay in luusina kaligeed ay weerartay habi aysan ahayn wax intaqaanaa 10 qof iyo 2 qof iyo aysan ahayn luusina kaligeed isku day dil ma noqonayo kamerada waa laga arkay luusina wax ma wadato wax gacanteeda ku wadato bir am wax ay wadato ma jirto tos soo aadi waa dhar baxdi waa fiirtay kashka imaana bistoolada saas ku kala tageen macnaha isku day dil ma noqonayo taas waa fahamtay kadib baaristu waa la baaray waxa la soo ogaaday in luusino gabadhan ay ku weerartay maseerka marka idin faayna marka waa reportiga hadda yaala idin sheega mugta oo maxkamadda hadii la aado reportkaas la aada taasoo ay tahay 100% confirm xariku ma dhacayo maseerkaas waa idin sheegi doonaa walaalayaal anaga maseerka hala u naqaana laakiin maseerka laba way mareeko kale invasion iyo waxa la kala dhahaa jealous la kala dhahaa la do fiirso wadankan aan joogo waxa laba way waxa way musta sukaynin iyo katelinin waxa way kaas waxa way kan dadka iska maseeraan qofka horumarkiisa iyo wanaagiisa gabarka maseerayso quruxdeeda iyo wanaageeda iyo sida loo jecel yahay nina adiga waxa ka maseeraysaa ninkan nin shaqaysto lacag haysto nin karti badan oo dadkiisa u roono xaaskiisa u roono ilmihiisa u roono waxa way kaas waxa way waxa way mataqaanaa waxa way ingiriis waxa lahaa mataqaanaa waxa la invasion wadanka aan joogo wuxuu noqonayaa katilin noqonayaa kaas normal way Soomaalida dhan kaas u sameeyaan kan halista marka waxa way kan waa marka hadda luusina gabadhan weerar ku qaado oo booliska u qoreen waxa way jealous way finish waxa la mustasuqaynin kaas qatar way wal isku dilaa wallahi billahi rag nin haduu maseerkaas macna naagto ay dilaan naagtana haday maseerto ninka waxbay ku dhufanay ama waxbay ku tuuray ama biyo ku shubay waxa Soomaalidu way sameeyaan adduunka way sameeyaan waxa la dhahaa jealous Allah hadu fiirso labadaas adduunka kala baxa maseerka labadaas way anaga laakiin maseerka hala u naqaana sidaad ku fasay maseerka luusina ay ku weerartay habi waxa way jealous way hadu fiirso gabadhan sirta kashka waxa uu u sheego habi iyo hadalkii habi sameynaysa macnaha 1 milyan kashka iyo muuqaalada iska soo duwayaan iyo intaas way hadu fiirso marka isku soo duub waa kiis ku dhacay maseer way migil Allah shariifka way wurina shariifa ka shakalina waan arki doontaa hadii la yiraahdo hadda laakiin luusina banaanka joogta luusinana waxa way waxa mutaqaana markii tolkeen ashraaf laga soo tago almajeerteeniya maanta majeerteen oo ma dilnayna hadana ashraaf hadanahay qayb weyn ka qaateen waxa way mutaqaana inay gabadheen soo garab istaagaan mas'uuliyiinta ama madax way ilma dhahayo laakiin waxa way taas waa undercover way mutaqaana waxa way ma sheegay laakiin walaalkiis saar u dhacay maxay majeerteen waxay arkeen CCTV kamerada arkeen waxay arkeen si wax u jiraan waxay arkeen waxa inay tahay maseer ay wax kale ahayn gabadhan inaysan dib u soconin inay habi dhaawacdan u soconin kaliya maseerkaas taas ma fahanteen isku soo duub 100% arintan saasi u dhacday wax lacag iyo wax magdhow yahay ma jiraan habina way ku qasbata inay canuf dib loo maxay la cadeynta lahaaya kiiskana saan u dhac walaalayaal insha Allah taala waxa way hadii maxkamad la aadan wala arka hadii la heshiino